kulan wanaagsan daawade halkani waa channelka wararka Soomaali News ku soo dhawaada tabinta maalin qodobada ugu waaweyn waxa qayb ka xoog xayiraado la saaray madaxda Soomaaliya go'aan lama filaan oo ay qaadatay dawladda Mareykanka hawlgalla ka socda magaalada Beledweyne nabadoon caana oo lagu dilay xiisad mar kale ka curatay magaaladaasi boob xoogan oo lagu hayo doorashada gobolada waqooyi iyo dacwad laga gudbiyay Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaare Roble oo kulan la qaatay gudiyada doorashooyinka xalinta khilaafaadka iyo qorshe uu damacsan yahay xilligaani qodobada iyo qodobo kale ayaan ku tabi doonaa wararka Soomaali News ee maalin ee u diyaar garooba daawadayaal mar kale kulan wanaagsan daawada waa 9 bisha Febraayo 2022 waa maalinimo Arbaca ku soo dhawaada qodobada maqasheen iyo kuwa kale oo ay faahfaahintooda guda galno haddii aynu ku bilowno dawladda Mareykanka ayaa xayiraado ku soo rogtay qaar ka mid ah madaxda Soomaaliya xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku dhawaaqay soo saarista xayiraado fiisa oo ka dhanaya shakhsiyaad hadda xilalka haya iyo kuwa hore u soo qabtay Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay mas'uul ka yihiin waxyeeleynta hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya xogayaha ayaa bayaankiisa ku yiri iyadoo ay ku beegan tahay sana guuradii koobaad markii uu muddaxileedkiisa dhamaaday madaxweynaha Soomaaliya waxaan ku dhawaaqaynaa fulinta xeerka socdaalka qaranka ee qaybtiisa 112 ee 3C kaas oo diiday in fiisa la siiyo shakhsiyaad xilalka haya iyo kuwa hore uga soo qabtay Soomaaliya kuwa la rumaysan yahay inay mas'uul ka yihiin waxyeeleynta hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya xogayaha Mareykanka ayaa sheegay in shakhsiyaadkaasi ay rabshado u adeegsanayaan dibadbaxayaasha ay xirayaan ama cabsi gelinayaan suxufiyiinta iyo xubnaha mucaaradka ama ay boobayaan hanaanka doorashada dalka waxa uu intaa ku daray in xubnaha qoysaskooda iyo shakhsiyaadkaas ay sidoo kale saameyn karto xanibaadaasi siyaasadan ayaa lagu dabaqi doonaa xubno kaalin firfircoon ka qaatay hanaanka qiyaamaynta ku dhisan ee lagu sameeyay hanaanka doorashada Soomaaliya ama ay ku guul dareysteen inay gutaan waajibaadkoodii in ay doorasho hufan ka fuliyaan oo waqtigeeda ama ay ku beegsadeen suxufiyiin iyo xubno mucaarad ah iyagoo handadaya ama cabsi gelinaya xiraya ama beegsan ama la beegsanaya rabshado kale kuwaas oo ku takrifalaya awoodda dawladeed ayaa lagu yiri qoraalka xogayaha Mareykanka ma shaacin magacyada shakhsiyaadkan iyo goorta ay hirgelayso siyaasadda lagu beegsaday balse waxa iska cad inay yihiin hogaamiyaasha Soomaaliyeed oo tiro dhowr jeer horey lagu baaqay inay dardargeliyaan doorashooyinka lagana waantoobo wax isdabamarsiinta iyo musuqmaasuqa hogaamiyaasha qaranka iyo kuwa dawlad goboleedyada Soomaaliya waa inay ka dhabeeyaan ballanqaadkooda inay doorashada golaha shacabka ay dhameystiri karaan ka hor 25 Febraayo taas oo dhabaha u xaari karta hanaanka dawladeed oo firfircoon oo Soomaaliya yeelato ayaa lagu yiri mar kale xogayaha qoraalkiisa ee Mareykanka dawladda Mareykanka waxay si buuxda u taageeraysaa shacabka Soomaaliyeed waxa ay naga go'an in aan kala shaqeyno sare u qaadida dimuqraadiyadda iyo barwaaqada labada dal ayaa lagu yiri qoraalka sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka ayaa sheegay in wadada ugu wanaagsan ee Soomaaliya ay ku joogteyn karto nabad ay tahay si degdeg ah in loo soo gabangabeeyo hanaanka doorashooyinka kaas oo sababay dib u dhac boob iyo sidoo kale wax isdabamarin xoogan maadaama shakhsiyaad badan lagu tuhmayo musuqmaasuqii ugu weynaa ee doorashooyinka ay ugu badan yihiin madaxda maamul goboleedyada xafiiska ra'iisul wasaare Roble iyo Villa Soomaaliya qoraalka Mareykanka ayaa lagu xusay sidoo kale in ay shakhsiyaadkaasi tilaabo cad Mareykanka ka qaaday balse magacyadooda ma xusin waxa la sheegay inay yihiin siyaasiyiin dhowra waxayna ku tilmaameen Mareykanka qaswadayaal ee Soomaaliya haatan dhibaato xoogan ka wada tiro dhowr jeer ayayna Mareykanka ku goodiyay inay xayiraado saari doonaan shakhsiyaad siyaasadda Soomaaliya caanka ah iyo madaxda intaba maadaama ay sheegeen inay ku yeelanayaan daahinta doorashada iyo sidoo kale wax isdabamarsiin xoogan oo xilligaani lagu takrifalayo awoodda dawladeed waa sida xuseen Mareykanka xogayaha Mareykanka ayaana si buuxda u sheegay inay ka dhabay doonaan go'aankooda isla markaana haddii sidoo kale 25 bisha Febraayo oo socoto 9 maalin ay ka tagtay aan la soo gabagabeyn doorashada dalka ee waqtiga hore shirki golaha wadatashiga qaranka lagu soo saaray ay ka dhalan kartaa waaqib xumo kale oo la mahdin waxayna sheegeen sidoo kale inay saari doonaan xayiraado kale madaxda inta badan Soomaaliya walow aan si dhab loo ogeyn xayiraadan shakhsiyaadka la saaray haddana waxay xogaha sheegayeen inuu qayb ka yihiin madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale saaxiibo aad ugu dhow
xubno ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaare Roble balse si cad looma xaqiijin karo oo ma xusin dowladda Mareykanka magacyada iyo sidoo kale shakhsiyaadka ay yihiin dadka ay xayiraadda saartay ee siyaasadda Soomaaliya xilligan ay sheegeen inay qaswadayaal ka yihiin isla markaana ay ku yeesheen boobka doorashada wax isdabamarsiin iyo ku tagrifal awoodeed oo shacabka iyo siyaasiyiinta ay u sheeganayaan xilligani. Si kastaba ha ahaatee dowladda Mareykanka ayaa tiro dhowr jeer waxay horey ugu goodisay inay xayiraadda saari doonto madaxda Soomaalida haddii aysan ka waantoobin daaha doorashada iyo dib u dhacyada muddada badan sababay ee doorashada Soomaaliya oo xilligan xiisado xooggan ay ka dhalatay qaabka loo wajahayo taasoo qayb ay ka tahay xafiiska labada xafiis ee dalka ugu sareeya khilaafka xooggan ee ka dhex taagan. Markaana magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa xalay waxaa ka dalkaasi ka dhacay howlgallo qorsheysan oo ay fulinayeen ciidamada dowladda iyo kuwa Hiirshabelle kadib markii lagu dilay nabadoon caan ah oo lagu magacaabi jiray Cabdi Xuseen Colow oo caan ka ahaa magaaladaasi kana mid ahaa odayaasha dhaqanka ee magaalada Beledweyne. Kooxo hubaysan oo baskoolada wata ayaa nabadoonka ku dishay xaafadda Buundaweyn ee magaaladaasi dilka kadib hayeen isaga baxsadeen goobta taasi oo sababtay in howlgallo xooggan ciidamada ay ka sameeyaan oo jawiga magaalada hal mar uu isbedelay. Dilka nabadoonka kadib waxaa magaalada ka bilowday howlgallo culus waxaana dadkii ku sugnaa magaalada intooda badanba laga soo saaray guryahooda si loo baaro sidoo kalena waxaa wadooyinka waaweyn baaritaan lagu marsiinaya gaadiidka maraya halka kuwa kalena la xiray. Taliyaha nabad sugidda ee ka howlgala magaalada Beledweyne Ibrahim Maxay ayaa hogaaminaya howlgalkan waxaana laga dareemaya magaalada Beledweyne oo ku sugan yihiin dhammaanba madaxda dowlad goboleedka Hiirshabelle oo qayb ka yahay Cali Guudlaawe Xuseen madaxweyne ku-xigeenka Hiirshabelle dabageed mas'uuliyiin sarsare oo ka socota dowladda Soomaaliya iyo ciidamadii dhawaan halkaasi ay geysay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dilka loo geystay nabadoonkan lagu magacaabi jiray Cabdi ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli shalay madaxweynaha Hiirshabelle Cali Guudlaawe ay hay'adaha ammaanka amray inay si degdeg ah xaafadaha magaalada loo baaro howlgallo lagu xaqiijinayo amniga maadaama doorashada magaaladaasi dhawaan ay ka bilaaban doonto. Sidoo kale nabadoonka la dilay ayaa qayb ka ah odayaashii dhaqanka ee shalay ka qayb galay heshiiskii dhexmaray beesha Xawaadle iyo madaxweynaha Hiirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen taasoo muran badan sababtay maadaama nabadoonka maatanka Cali Guudlaawe iyo shirki kadib toogasho lagu fuliyay waxaana heshiiska ay gaareen Cali Guudlaawe Xuseen iyo waxgaradka beesha Xawaadle oo muddo ka diidana kana hortaagnaa magaaladaasi hal sano ka badan waxaa haatan irid u noqday in ay magaaladaasi ay ku wada sugnaadaan ciidamadii kacdoonka gobolka Hiiraan iyo kuwa dowladda Soomaaliya dhawaan ay geysay iyo kuwa Hiirshabelle waxaana doorashada magaalada Beledweyne uu sheegay Cali Guudlaawe Xuseen in dhawaan la gudagali doono inkastoo doorashadaasi ay intooda badanba buuq badani haatan ay hareeyay maadaama fila Soomaaliya ay gacanta ku hayso la sheeganayo shakhsiyaad gooni oo Muqdisho uga soo socdo loo wada xiray. Guddiga doorashooyinka Hiirshabelle ayaana qorshuhu yahay inay dhawaan shaaciyaan liiska musharaxiinta u tartami doonta 25 kursi oo taala magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Dilka loo geystay xalay nabadoonkaas caanka ah weli gacanta laguma dhigin shakhsiyaadka ka dambeeya balse waxaa jira dad badan oo loo qabtay. Ciidamada ammaanka Hiirshabelle iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaana howlgallo xooggan ka wada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taasoo lagu adkeynaya amniga iyo sidii looga hortagi lahaa falalka noocan oo kale ah. Waxaa boob xooggan lagu hayaa doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi iyadoona haatan dacwad laga gudbiyay Mahdi Guuleed ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Cabdi Caashi Cabdullaahi gudoomiyihii hore ee aqalka sare ee Soomaaliya. Hanaan xawli ah oo weheliso boob ayaa u socota doorashada gobolada waqooyi iyadoona la iska dhagatiraya dhaliilaha hareeya kuraastaasi oo ilaa ay haatan doorashada la qabtay ku gadaaman. Guddiga doorashooyinka reer waqooyiga ayaa shalay soo saaray jadwalka 5 kursi oo doorashadooda la qabanayo toddobaadkan gudihiisa. Kuraasaas oo la qabanayo doorashadooda ayaa sumadahooda waxay kala yihiin Hob 241, Hob 263, Hob 240, Hob 271 iyo Hob 205 iyadoona la sii ogyahay natiijada doorashada kuraastaasi taasoo ah in arrinta keenayso walaaca ugu badan ee xilligan ka taagan doorashada gobolada waqooyi maadaama shakhsiyaad gooniya loo xiray. Mahdi Maxamed Guuleed qadar ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Cabdi Caashi Cabdullaahi ayaa u muuqda waqtigan inay ku heshiiyeen baabka kuraasta gobolada waqooyi maadaama iyagu yihiin kuwa hagaya horkacayo isla markaana ergada u soo daabilayo howlka doorashada lagu qabanayo dugsiga sare ee booliska General Kahiye.
siyaasiyiinta reer waqooyiga ayaa xilligan ku eedeynaya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Mahdi Maxamed Guleed Qadar inay ku hayaan boob xoogan doorashada gobolada waqooyi isla markaana ay tahay mid aan indhaha laga qarsan karin iyagoona xafiiska ra'iisul wasaare Rooble faray inay wax ka qabato musuqmaasuqa iyo sidoo kale boobka qaawan ee hareeyay doorashada gobolada waqooyi. ra'iisul wasaare Rooble ayaa tiro dhowr jeer xaliyay khilaaf xoogan iyo cabasho ka dhex taagneed xildhibaanada gobolada waqooyi siyaasiyiinta kuwaas oo la kala safnaa Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Mahdi Maxamed Guleed Qadar. Arrinta ugu badan khilaafyadaasi keenaysa ayaan ahayd boobka doorashada iyo qaabka loo wajahayo dhinacyada ay isku kala eedeynayeen inay kala badshadeen doorashada. waxayna arrintan cabashada ay ku soo aadaysaa iyadoo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu kulan la qaatay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dalka kaas oo kala hadlay xalinta wax ka qabashada doorashada xilligan dalka ka socoto iyo boobka kuraasta qaar maadaama cabasho laga gudbiyay xildhibaanad kuraastooda hore ugu soo baxay. tan iyo isbedelka lagu sameeyay guddiga xalinta khilaafaadka hogaankooda ma jirto wax cabasho ah oo loo gudbiyay waxaana muuqata in raalli la isaga yahay habka ay doorashada u socoto inkastoo cabasho xoogan ay hareysa doorashada iyo boob maadaama shakhsiyaad gooniya kuraasta loo xiray jirin doorasho tartan loo galay. xafiiska ra'iisul wasaare Rooble waxa uu tiro dhowr jeer dhankiisa ku baaqaya in doorashada ay noqoto mid daahfuran. shirka golaha wada tashiga qaranka ugu dambeeyay ayaana go'aanadii laga soo saaray wax ku oolka waxa qayb ka ah in doorashada ay noqoto mid xor iyo xalaal ah dhammaanba shakhsiyaadka musharaxiinta u tartamaan. inta ayaan ku soo gabagabanaynaa tabinta wararka aad kala socoteen channelka wararka ee Somali News. qayaar mid la mid inta kulmi doono nabadgelyo.